idaan bal asalkiisa dib ha isugu noqdee ha eega wixii laga abuuray buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. fiirintan la tilmaamaya ma aha fiirin inta la fiiriyo waxa laga abuuray uu ka dhaqaaqo, balse waa fiirin ictibaar leh oo nadar ah uu wax ku garto, uu ilaahay ku aqoonsado. mar allaala markuu arka waxa laga abuuray sida ay yihiin iyo heerka uu maanta taagan yahay, waa inay ku kaliftaan inuu ilaahay u soo laabto dembi dhaaf uu weydiisto. falyandur ilinsaanu, insaanku ha eego oo ha fiiriya mima khuliqa, wixii laga khalqay buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. maxaa laga abuuray? wixii laga abuuray ama wixii laga abuuray ha fiiriyo. khuliqa waxaa laga abuuray min maa'in biyo, biyahaasoo daafiqin boodboodaya. biyo mar allaala marka ay soo baxayaan dafqi ku soo baxa, hal mar ma soo qubtaan, macnaha dafqi bay u soo baxaan, inbaa soo booda, haddana in kalaa sii booda. biyo noocaasoo kalea ayaa laga abuuray. khuliqa min maa'in, biyuu ka abuuray ilaa subxaana wa tacaala. biyahaasoo daafiqin shubmaya dheh haddii kale. ila insaanka ilaahay subxaana wa tacaala asalkiisa biyuu ka abuuray. insaankii waxaan ka abuurnay biyo, nudfo candhuuf yar. saa darteed buu ilaahay tilmaamayaa insaankii khuliqa waxaa laga abuuray min maa'in biyo, biyo xaggooda, biyahaasoo daafiqin shubmaya oo daafiq ahoo boodboodaya, oo marka ay soo baxayaan hab boodboodma ah markaa u soo baxaya. yakhruju min bayni sulbi waataraa'ibi, daynaayo oo bannaanka lasoo dhigayo la kashifayo. asaraa'iru wixii qarsoonaa oo siryaal ahaa oo dhanba maalinta markaa bannaanka lasoo bixin. famaa lahu, uma sugnaanin insaankii marka min quwatin xoog iyo walaa naasirin wax u kaalmeeyaba, awood uu asaga ku baxsado, ama awood uu ilaahay isaga celiyo, ama awood uu asaga isbido oo wixii dhiba oo ku soo socda uu isaga celiyo asagu leeyahay ma jiro. naasir iyo mid u hiiliya oo u gargaara oo tabar siiya oo ka celiya dhibka maalintaa jirana ma laha. qofku waa inuu asagu gargaarsan karo, ama samiciin uu leeyahay iyo qof markaa u gargaara, labadaba ma jirta buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. famaa lahu, uma sugnaanin insaankii min quwatin xoog uma sugnaanin, walaa naasirin, naasir xaggiisana wax ugama sugnaan, qof u taageero u hiiliya oo markaa dhib iyo waxyaabo kale ka difaaca. waasamaa'i, samadii baan ku dhaartay buu yidhi ilaahay, daati arajci, rajciga u saaxiibka ahayd. samadii ayaan ku dhaartay buu yidhi ilaahay, celcelinta u saaxiibka ahayd. daati arajci ay daati almatar, roobka u saaxiibka ahayd waaye. roobku ma aha mid hal mar suu u bilowdo ilaa qiyaamay ka dhacdo qubtaa, balse waa rajciyaayo cabbaar markuu soo qubta wuu istaagaa, haddana wuu soo noqdaa, ama gugiyaalkii buu u yimaadaa, xilliyadiisii buu markaa yimaadaa. saa darteed buu ilaahay ku dhaaranayaa roobka nafciga uu leeyahay sababteed. waasamaa'i, samadii baan ku dhaartay, daati arajci, matarka iyo roobka soo celcelinaysay ee roobka soo celcelinta u saaxiibka ahayd. iyo waalardi, arladii baan ku dhaartay, daati sadci, sadciga u saaxiibka ahayd. waa jeexjeexanka, jeexjeexankay u saaxiib tahay. sidaa darteed samaawaadku markay cirka ay ka soo qubtaan biyaha, dhulkana ay ku soo daataan, dhulku wuu jeexjeexmayaa, wuu dhandhambalmayaa, si nabaadkii iyo waxyaabihii loogu talagalay ay uga soo baxaan. horaan u soo marnay arlada, mar allaala markii ilaahay soo shuba cirka, annaa sababna almaa'a sabba uma shaqaqna alarda shaqa, dhulkii baan jeexjeexaynaa say nabaadku uga soo baxaan. sidaa darteed buu ilaahay dhaaranayaa. waasamaa'i, samadii baan ku dhaartay, daati arajci, matarka u saaxiibka ahayd, soo celcelinta u saaxiibka ahayd, celcelinta oo roobka uu ku soo noqnoqdo uu ka yimaado xaggeeda. waalardi, arladii baan ku dhaartay, arladii daati sadci, jeexjeexanka u saaxiibka ahayd, oo jeexjeexanka u saaxiibka ahayd markuu roobku ku soo da'ee. innahu qur'aanku la qowlun, qowl waayo fasli ah, wax kala bixiya. qur'aanku waa qowl fasli ah, qur'aanku waa qowl fasli ahoo faasil ahoo wax kala saara, wax kala bixiya, wax kala caddeeya. waa qur'aan fasli ah, waa qur'aan bayaan ah, waa qur'aan cad, waa qur'aan wax caddeeya. saa darteed mugdi ma saarna. ummaddu in badan bay ku dhaqmi karaan, kuna camal fali karaan, raacina karaan waxyaabaha uu u diro. innahu laqawlun faslun, waa qowl bayaan ahoo wax kala caddeeya. wamaa huwa,
ma aha qur'aanku bilhasli cayaar iyo dheedheel ma ahan buu yidhi ilaahay. hasli ma aha wax lagu baashaalo iyo wax lagu haasaaba toona ma aha. qur'aanku ma aha mid hasli ah, mid dheedheel ah, mid ciyaar ah. innahum ayagu yakiiduuna way dhagar falayaan. yakiiduuna kuwii dhagar falaya waaye oo kayd iyo dhagar iyo makri la imaanaya. kaydan dhagar falid wa akiidu aniguna waan dhagrayaa oo waan ka abaalmarinayaa kaydkii waxyaabaha ay wataan. kaydan dhagar falid mar allaala markii kayd ay sameeyaan oo ay isugu talagalaan qur'aanku inay u makriyaan oo ay dhib gaarsiiyaan ama waxyaabo fara badan, ilaahay waa u sugayaa subxaana wa tacaala. mar allaala markay isdhigtaan oo ay iloobaan buu rabbi qaban subxaana wa tacaala. innahum yakiiduuna waa kuwii kayd samaynaya. kaydan kayd samayn iyo dhagar falid wa akiidu aniguna waan hagarsanayaa buu yidhi ilaahay. kaydan hagarsi. famahili lkaafiriina gaalada wax yar unbaa u dhimane rasuulka allah u sabr. suuraddu waxay aad noogu tilmaamaysaa ilaahay subxaana wa tacaala cadamadiisii awooddiisa. abuurkeena waxana la ka abuuray iyo sida ilaahay naga dhigay subxaana wa tacaala. dhammaan waxay tilmaamaysaa arrintaa cibro iyo wax lagu cibro qaato, lagu waana qaato, qiyaamo lagu xusuusto, diin lagu raaco, amar alle lagu fuliyo, xumaanta looga tago. sidaa darteed baa marka dambana kaafiriinta qur'aanka hagarsanaysa oo mar walba makriga iyo kaydka ku haaya ilaahay inuu qaban doono aynana ka baxsan doonin ayaa markaa la tilmaamaya. innahum yakiiduuna way dhagar falayaan. kaydan dhagar falid wa akiidu aniguna waan akiidhayaa oo waan u dhagar falayaa. kaydan makri falid. famahili lkaafiriina kaafiriinta usug buu yidhi ilaahay. amhilhum waxaad u kaadisaa ruwaydan in yar. suurat laclaa acla suuraddeeda ayduna kama baxsano suuradaha aan ku dhex jirnay makiga oo kale inay u hadasho. bismi illaahi araxmaani araxiim. sabbix isma rabbika alaclaa. sabbix nazah rasuulka allow huf oo nadiifi waxaanu cunta mina ka ilaali. isma rabbika rabbiga magaciisa. rabbigii alaclaa ee sarreeyey. ilaaha aclaaha ah ee sarreeya subxaana wa tacaala magaciisa huf oo nazah oo wax allaala waxaanu cuntamin oo dhan ka ilaali. nebiga waxaa ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam salaada jumcaha inuu ku aqrin jiray rakacada koobaad mararka gobol ka mida ama inta badanba sabbix isma rabbika alaclaa. suuraddan alaclaa lagu magacaabo. ciidaha laftigeeda way soo aroortay inuu ku aqrin jiray. saa darteed suuraddu waa suurad cajiib badan. rasuulku mar allaala markii uu akhriyey wuxuu oran jiray subxaana rabbiya alaclaa. waa tii uu yidhi ka yeela midaani sujuudiina. horay uu u tilmaamay ilaahay suuradaha kale mar allaala markuu ilaahay soo dejiyey fasabbix bismi rabbika alcadiim. tanna waxaad ka yeeshaan rukuucdiina oo ilaahay rukuucda ku weyneeya. sabbix isma rabbika alaclaa markay soo degtayna midaani booska sujuudda geeya. sabbix isma rabbika alaclaa oo subxaana rabbiya alaclaa dhaha markay aad sujuudsan tihiin. sabbix nazah rasuulka ilaahayow isma rabbika rabbiga magaciisa. rabbigii alaclaa ee sarreeyey. allaha sareeya oo makhluuqaadkiisa ka sarreeya. allaha magaciisa waxaad u diidaa ood ka ilaalisaa wax allaala waxaanu cuntamin oon u qalmin, wax kasta oo nusqaan ah, wax walba oo ta'wiil ah iyo wixii markaa la mid ah. alladii allihii khalaqa abuuray khalqiga oo dhan fasawaa haddana simay. fasawaa simay oo ekeeyey. sawaha waxaa loola jeedaa makhluuqaadkii uu abuura khalqigiisii uu u dhammaystiray subxaanahu wa tacaala. والذي macbuudkii والذii qadara allihii qadaray oo karay fahadaa haddana hanuuniyey oo ku toosiyey shay walba wixii loogu talagalay. والذii macbuudkii ama allihii akhraja soo saaray almarca daaqa marciga iyo daaqa soo bixiyey soo saaray. والذii akhraja almarca fajacalahu kadibna ka yeelay guhaa'an wasaq axwaa oo markaa madow. guhaha waa daadxoor ayuu ka dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala. wuxuu ka dhigay wax aan taqaanaa madow wax ayagoo dhanba baaba'ayoo burbur guhaa'an burburdhe haddii kale
daad xoor iyo wasaq iyo xumbo iyo waxaan waxba ahayn ka dhigay. mar allaala markii marcigii iyo daaqii uu soo baxay, mar allaala markuu cagaar ahaa ee uu doog ahaa, in hoogaa ka bacdi waa dharayaa, markaasuu burburayaa, dhulkuu ku soo daadanayaa, markaa ka bacdi buu noqonayaa ghusaa'an axwa, burbur madow ah oo waxba qiimo aan markaa lahayn. sabbix nasih oo waxaad nasahdaa ismi rabbika, rabbigaaga magiciisa alaclaa ee sarreeye, alladii ilaahii khalaqa abuuray shay kasta oo fasawaa simay oo dhammaystiray khalqigiisii, waaladii macbuudkii ama ilaahii qadara qadaray oo karay oo jaangooyey abuurkooda, fahadaa haddana toosiyey. qadara macnaha u qadaray wax walba wixii loogu talagalay, wuxuu cuni lahaa, wuxuu cabi lahaa, intuu noolaan lahaa, wuxuu qabsan lahaa, ilaahii u qadaray fahadaa haddana ku hanuuniyey. makhluuq kasta wixii loogu talagalay ayuu ilaahay ku hanuuniyey subxaana wa tacaala. matal ciyaalka yaryarkaa marka ay dhashaan ayagoon waxba kala garanaynin, waxaad arkaysaa naaska hooye marka afka loo geliyo waa jiqaya, yaa baray, saasuu u qabsanayaa mararka gobol ka mida, markaasuu caano kala soo baxaya, uu cabaya, yaa baray. ilaahay baa ku qadaray subxaana wa tacaala, ilaahay baa ku hanuuniyey subxaanahu wa tacaala. sidaa darteed xayawaanka waad aragtay say isku raacraacayaan, qaabtaranka habkay u isticmaalayaan, intaasoo dhan yaa baray, ilaahay baa ku hanuuniyey subxaana wa tacaala. waa taqdiir ilaahay, waa karid ilaahay. sidaa darteed baa waxaa la nasahayaa allaha amuuraha iyo waxaasoo dhan markaa qabtay. waaladii qadara allihii karay oo fahadaa hanuuniyey, waaladii waa macbuudkii ama allihii markaa loo sheegi karin. hadday xaaladdu heer kaa gaarto fardu kifaaya layska ridayaa oo waa loo sheegayaa, laakiin dad baa jira khayr lagu tuhmayo, in badan baa wakhti lagu dhumin oo xaqii loo sheegayaa. ileen waanadu way anfacaysaa qofka noocaas ah. waanadu haddii ay anfacayso rasuulkii allow wacdi, in nafacati dikraa sayadakkaru, waxaa kuwaana qaadanaya oo qur'aanka ku wacdoomaya, diintaada iyo waxaad u sheegta ku qaadanaya, man yakhshaa qofka cabsanaaye. kan baqaya waa wacdoomayaa, kan baqaya waa qaadanayaa wacdiga iyo waanada. wayatajannabu waxaa ka fogaanaya haa wacdiga iyo waanada alashqa, kan shaqigahee madaxa adag, kan shaqigee nasiibka daran, kaa wuu ka fogaanayaa, kaa waa diidayaa, kaa ma raacayo diintii iyo wacdigii dhagihiisa ayaa waqri iyo culays saaran. laakiin rasuulkii allow wacdi oo waani hadday waanadu anfacayso, sayadakkaru waxaa ku waanoobayo kuwaana qaadanaya, man yakhshaa kan cabsanaya. wayatajannabuhaa waxaa ka fogaanaya wacdiga iyo waanada alashqa, kan shaqigaana wuu diidi doonaa. waa kee? alladii waa midka yasla naara naarta gelaya, naartii alkubraa ee weyneed. naartu way kala adag tahay, way kala weyn tahay. dadkan wacdiga iiwaanada kuwaana qaadan waayey oo maskaxdoodii wacdi iyo diingeli waayey oo waanadii nebiga ka dhaga furaystay, ayaga naarta kubrada ah ee ugu weyn taabay markaa leeyihiin. bal tu'hiruuna alxayaata addunyaa waalaakhiratu khayrun wa abqaa. ina haadaa taa in loola jeedo aayadaha wacdiga iyo waanada tilmaamaya waxay ku sugnaayeen ama ay ku qornaayeen la fi suxufi aluulaa, suxufihii hore, suxufi ibraahiima, nebi ibraahim suxuftiisay ku qornaayeen, iyo wa muusaa, nebi muuse calayhi salaam wixii kutubo ahaa ee la soo diri jiray way ku sugnaayeen. ina haadaa suuradoo dhan waad ka dhigi kartaa. suuraddani la fi suxufi aluulaa, suxuftii horey ku sugnaayeen, suxufi ibraahiima, nebi ibraahim, iyo wa muusaa, nebi muuse suxuftiisa ayay markaa ahaayeen. suuratu alghaashiya, suuradda lagu magacaabo suuratu alghaashiya kama maqna ayadana inay caqiida ka hadasho, inay dadka ilaahay barto, in ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisii waxyaabo badan ee uu qabtay ummadda loo tilmaamo, janno iyo naar inay ka hadlayso. aalaa suurooyinka maka ayaa sidaa u hadla. hal ataaka makuud yimid rasuulkii ilaahayow xadiidu alghaashiya, tii wax daboolaysay warkeeda. ghaashiya waa qiyaamaha howlkeeda iyo dhibkeeda iyo mashaakilka ay leedahay dadkii ku dabooshaa. saa darteed buu ilaahay leeyahay, hal ataaka makuu timid ama makuu yimid rasuulkii ilaahayow xadiidu alghaashiyati,
tii wax daboolaysay oo kurbadeeda iyo shidadeeda iyo dhibkeeda ummadda ku hawinaysay oo ku daboolaysay warkeedii ma kuu timid wujuuhun wajiyaalo yowma-idin maalintaa khaashicatun waa tii khushuucsan wajiyaalo maalintaa khaashiyada imaanayso oo warkeeda lagu cadiiminayo war weyn uu noqonayo maalintaa wajiyaalo dadkii ka mida khushuuc baa ka muuqda caamilatun waa tii caamilad ahayd wejiyaalkaasoo camal qabatay naasibatun kuna dhibtootay camaladeeda xataa camalka naarta lagu gala ma sahlana weliba camalka jannada lagu galo iyo ka naarta lagu galo waxa suuragal ah in sacabka iyo dhibka uu yahay midka naarta lagu galo waa inaad wax dishaa waa inaad caaboo dhan meel ugu gabataa qofkaad dili lahayd waa inaad mataqaanaa wax dhacdaa waa inaad quful jebisaa waa inaad mataqaanaa god qodaa oo gurigii albaabka aad jebisaa rafaad iyo dhib lagugu soo kaco gidaar ka soo bood waa in maantoo dhan aad mataqaanaa zina iyo xumaan raadisaa waa in caawoo dhan dhaxanta aad taagnaatay mugdiga inanta kuu imaan weyso oo kuu goysa mashaakil dhib madax xanuun rafaad adigoo ku jira inaad soo noqoto ama camalada jannada lagu gaarayo ilaahay qir subxaana wa tacaala waxdaaniyadiisa waad qubaysan waad weys qaadanaysaa waa nadiif iyo tahirnaasho qamiis fiican ama macawiis qurux badan baad xiranaysaa shaar fiican oo wanaagsan baad qaadan catar iyo barfuum baad isku buufin aayar baad soconaysaa masjidkaad safka hore ka tegaysaa salaadaad tukanaysaa buuq ma jiro ha igu istaagin ma laha qaylan ma laha ma aha kalaabkoo kaleoo khamri sida loo cabayo inta la sarqaamo dhalooyinkii wax lagu cabayo faantada laysku garaacayo ma jirto xataa hadday dhacda nin musalli ah hadduu gacanta kaaga istaago si aayar intuu kugu soo raqmada lagu taraxuminaya warniin raalli ahow xaaladda nooca idan camalka naarta lagu galo iyo kan jannada lagu galo waxa khafiif ah wuuna noo imaan doonaa qur-aanku wuu noo tilmaami doonaaye waxaa fudud oo qiimo badan oo yasri ahoo aad u sahlan waa midka lagu gelayo jannada camalka naarta lagu gelayo wuu ka dhib badan yahay waata ilaahay tilmaamaya caamilatun waa tii caamila ahoo camal qabanaysay camal bay qabatay naasibatun oo dhib badanoo waa tii ku dhibtootay taslaa naaran naar bay geli naartaasoo xaamiyatan xaamiyad ah naar aad u kulul tusqaa waa la waraabinayaa oo min caynin il xaggeedaa laga waraabin ishaasoo aaniyatin aad u sii kulul xaamiyada waa kulayl aaniyadana waa kulayl aad u sii daran oo kulaylka xaamiyada ama xamiimada ka sii adag kaasaa markaa la cabsiinayaa laysa lahum uma sugnaanin wejiyaalkaa طacaamun طacaam iyo raashin ilaa min dariicin geed qodxeed maahane geedka dariica lagu magacaabay geed qodxeed ka ah maahane wax kale oo ay cunayaan mala buu dhahay ilaahay subxaanaه wa tacaala laysa uma sugnaanin lahum ayagu waa kuwa ahlu naarka ah ee diinta alla diiday camalka qabtay xumaa camalkiina ku dhibtoodo inta naar la geliye kulayl badan la cabsiye biyo aad iyo aad u kulul oo markay cabaan faqataca amcaa'uhum mindhiciradooda uu soo go-go-aye laysa lahum طacaamun raashinku ma laha meesha ugumana sugnaan ileen camal fiican oo raashin fiican lagu siiya maysan qabanin ma dadaalina waatay aakhira ka doorteen tii dhoweed ee adduunka ahaa idan طacaam baa la siinayaa iyo raashin oo dariic ah waa geed qodxeed laa yusminu cayilin maayo ku cayili maayaan walaa yugni mana ka deeqayo kama waxna uga mataraya min juucin baahi raashinka waxaa inta badan loo cunaa laba arin midda koowaadna in gaajadu ay kaa tirtiranto baahi uu ku baahi tiro ta labaadna in fitamiinaad iyo waxyaaba jirka u baahan yahay laga helo markaa qofku soo naaxo labadaa xaaladba waa suuragal ilaa dariic waayo kan waa geed qodxeed ka dhex baxaya naarta gudaheedoo biyo kulul lagu dul cabaye wax cayilitaan ah iyo wax wanaagsan kama sugnaanin qoraan u soo marnay baariyaasha marka jannada la geliyo tacrifu fii wujuuhihim nadrata annaciim naciimada dhalaalkeedii iftiinkeedaad ka fahmaysaa wejiyaalkooda buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala ilan waa dad tamatucaysan waa dad raaxaysanaya waa dad طacaam fiican la siiyey waa dad raashin wanaagsan la siiyey waa dad fawaakihaad cunay waa dad ilo kala noocnooc ahoo khamro ah oo caano ah oo malab ah oo biyo ah iyo waxaan indho arkin dhegana maqlin qalbi bani aadamna aan ku soo dhicin meesha markaa ku haystaa amaa dadkan maxay la cayilaan dadkan dhiigooda ma soo iftiimaayo nadrata naciim kama muuqato sababtu waxay tahay geed qodxeed iyo biyo kulul ayaa meesha lagu siinayaa laa yusminu cayilin maayo walaa yugni mana ka deeqaya min juucin gaajo xaggeeda wujuuhun wejiyaalo kale yowma-idin maalintaa naacimatun waa tii naacimad ah wejiyaalo kale maalintaa qiyaamaha oo qiyaamaha markaa la joogo
oo jannada ay galaan waxyaabaha la siinayo meesha ay ku cunayaan way nimcaysan. wujuuhun wejiyaalo kale yowma-idin maalintaa naacimatun tii nimcaysan waaye. nimca ka muuqanaysa baraaro iyo wanaag baa ka muuqanaya lisacyihaa camalkeeda raadiyatun waa tu raalli ah. camalkii ay qabteen baa raalli ah. camalkay qabteen bay raalli ku yihiin ayaga laftooda. iska daa wax kale camalkiiaba mataqaana raalli ah. ayagiina way raalli noqonayaan. camalkii bay raalli ka yihiin. fii jannatin janno dhexdeeda ayay yihiin caaliyatin oo markaas sarraysaa. janno caaliye ah oo sarraysaa. labada siba u sarraysaa. xagga sharaf ahaan iyo makaan ahaan iyo sida ay tahay way sarraysaa. xagga sideedana waa meel sare. ilaan jannadu darakaad naara ma ahee waa meel ciliyiin ah oo markaas sarraysa. fii jannatin janno dhexdeeda ayay yihiin kuwa wejiyaalkooda nimcaysan caaliyatin oo markaas sarsareeya. laa tasmacu maqlimaysa fiihaa jannadaa gudaheeda laaqiya wax xumaan ah. wax xumaan ah oo ay naftaa jannada gashay ama wujuuhdaa jannada galay ay maqlayaan markaa ma jiro. laqwi waa wax xumaan ah. waa wax ilaahay diiday. adduunku laqwigiisu aad buu u badan yahay. amaa jannadu ma jirto. fiihaa caynun jannooyinkaa dhexdooda ilo ayaa ahaatay jaariyatun oo dareeraya soconaya. ilo ayaa ahaaday iyo jaariye ahoo markaa soconaya. tajrii min taxtiha alanhaar hoostooda webiyaalaa dareeraya buu yidhi ilaahay. fiiha jannooyinkaa dhexdooda sururun amaa in kala maahee anta adigu mudakirun mid mudakir ahoo wax xusuusiya oo dadka diinka u sheegayaa tahay. lasta ma tihid calayhim korkooda bimusaytirin mid lagu qasboo lagu saydareeyey. hanuunkooda qasab lagaagama dhigin. aakhira markaad timaada kan muxuu usoo rumayn waayo lagu dhihi maayo. hadafkii ujeeddada laguu diray waa wacdi iyo waano. saa darteed dakiri oo xusuusi oo waani mudakir baa tahee. lasta calayhim dushooda kuma tihid bimusaytirin mid lagu qasbay ilaa man tawallaa kii jeesta maahane oo wakafara kufriya. laakiin man tawallaa kii jeesta oo wakafara kufriya fayucadibuhu allahu ilaahay wuu cadaabayaa kaa alcadaaba alakbara cadaab weyn buu ilaahay cadaabay subxaana wa tacaala. ninkii wacdigii haddana waan soo tilmaannay wacdiga ka leexda oo diida in naarta kubraa la gelinayo. cadaab kubra ahoo weyna wuu tilmaamayaa ilaahay. ilaa man maahane tawallaa jeesta wakafara haddana kufriyee gaalooba fayucadibuhu wuu cadaabayaa kaa allahu ilaahay alcadaaba alakbara cadaab weyn ayuu cadaabayaa. ina ilaynaa xaggeena ayaa iyaabahum noqodkoodu ahaaday. meeshay usoo iyaabayaanay usoo laabanayaan ay usoo noqonayaan waa xaggeena. humma intaa ka bacdi ina calaynaa dusheena waxaa ahaaday xisaabahum xisaabtankooda annaga ayay dusheena tahay. rasuulka ilaahayow adiga cadaabkoodii cadaabintooda laguu shaqo oo laguu diray ma aha. ujeeddada iyo hadafka laguu diray waa wacdi iyo waano. waa tadkiir iyo xusuusin. noo xusuusiyo xaqa 10 dambe ee habeenada ramadaanka u dambeeya. waayo waxaa aad loogu rajo badan yahay baa la yidhi in laga helo laylatulqadri walayaalin 10. waxaa suuragal ah in loola jeeda habeenadan 10 ah 10 ugu horaysa bisha dilxaj waa bisha carafada. waayo camal la qabto oo u dhigmaa ma jira buu dhahay nebiga. 10 habeen maalmahoodana way ku jiraan marka laga dhiga carafada. sidaa darteed baa la yidhi ka waran jihaad ilaahay jidkiisa lagu jihaadana xataa lama fadli dhama buu dhahay. camal la qabtoo wanaagsan 10 maalmood ee ugu horeeya bisha dilxaj. ilaa nin naftiisa iyo maalkiisii la baxay waxna aan la soo noqonin maahane. washafci walwatri shafcigu waa makhluuqa. watriguna waa ilaahay waa suuragal. waayo shafci waa wax kastoo laba ah. wakhalaqnaakum aswaajan baanu soo marnay. noocyaa laga abuuray dadka ayagoo aswaaj ah. wax walba 2 nooc buu ilaahay ka dhigay. inaa kula shayin khalaqnaa zawjayn lacalakum tadakaruun inay waana qaataan baa la rabaa. watrigana waa tiro isdhiman. shafciga waa tiro isla eg. watrigana waa tiro kala dhiman. walleyli habeenkii baan ku dhaartay buu yidhi ilaahay idaa yasri markuu tago ee uu iska guureeyo iska baxo. hal fii daalika qasamun lidii xijir intaasuu ilaahay ku dhaaranaaye waa laydin cadaabayaa haddii amarka ilaah aad qaadan weysaan. cadaab baa idiin dambeeya. hal fii daalika arrintaa dhexdeeda miyaysan qasamun dhaar u ahayn. hal fii daalika intaas gudahoodu ilaahay ku dhaartay miyaysan qasam iyo dhaar u ahayn wax loogu dhaarto lidii xijrin mid caqli u saaxiib ah.
qof caaqil ah wuxuu ku caqli qaata ma ahan miya? jawaabtu waa haa. alam tara ma aragtay rasuulkii ilaahayow kayfa sidii facala rabbuka rabbiga uu ku falay bicaadin reer caad, waa nebi huud qowmkiisii, irama iyo reer iram. iramtan ama waa awowayaashoodii ama waa caadii hore, daati alcimaadi tiirarka u saaxiibka ahaa. waxay ahaayeen inta badan reer guuraana waa la tilmaamaa, markaasay inta badan cimaadka iyo tiirarka qaadan jireen, meeshayba u guurayeen, ama ayagaaba sidii cimaad iyo tiirar oo kale markaa ahaa, xooggoodii sida ilaahay u qalqay. allatii taasoo lam yukhlaq aan lagu abuurin midluhaa matheelkooda fi lbilaadi bilaada iyo adduunka. wathamuuda reer thamuudna miyaadan arkin sida ilaahay u galay? aladiina thamuudaasoo jaabu sakhra dhagaxii gooyey. waxay samayn jireen waadiga ay deganaayeen dhagxaanta ku tiilay intay tagaan, yaaba maba la soo qaadaya dhagxaanta, meeshiisa inta loogu tago togiisa ayaa laga samayn jiray, waa la qorayaa, guryo qolol leh aa laga samaynayaa, awoodda iyo xoogga ay lahaayeen dartood. saa darteed bay gelayaan, waaba la seexanaa. hadda waa la qaadaa dhagxaanta, waa loo tagaa, waxbaa lagu qarxiyaa. intaa ka bacdi markuu go'go'o waxaa lagu soo qaadaa baabuur, fuundiga loo keenaa, waa jajabinayaa, asagana gobol gobol baa laga dhigaa. ayagu saas maba ahaynba, inta dhagaxa meeshiisa loogu tagaa la qorayaa, asoo meeshiisa yaalaa guri laga dhigayaa oo qolol leh, awood iyo karti iyo xoogga ilaahay siiye subxaanahu wa tacaala. saa darteed buu ilaah yidhi jaabu sakhra dhagaxii gooyey bilwaadi, waadigaa dhagaxa waadiga ku yiilay, ama ayagaa waadilquraa deganaa. wa fircoonna miyaadan arag siduu ilaahay ku falay fircoonkii dil awtaadi kibirka iyo qooqa u saaxiibkaa, ama awtaadka waa ciidankiisii, waayo teendhada awtaad baa lagu adkeeyaa, asagana waxa adkeynaya waa askartiisii. saa darteed buu ilaahay leeyahay fircoonkii awtaadka u saaxiibka ahaa, dhakowga, madax adayga ama ciidankaba. aladiina kuwaasoo tagow qadgudbay fi lbilaadi bilaadii ku xadgudbay suu ilaahay u galay. faakharuu waxay ku badiyeen fiiha bilaadii iyo adduunkii alfasaada fasaadkiibay ku badiyeen iyo wixii ilaahay diiday. fasaba markaasuu shubay calayhim korkooda rabbuka rabbigaa sawta cadaabin cadaabkiisa nooca ah ayuu ilaahay ku shubay, lagu cadaabay. fircoon oo kale biya lagu qarqiyey, thamuud oo kale waa lagu qayliyey, caad oo kale dabayl baa loo soo diray, sawt ayuu ilaahay u sameeyey. cadaab ishaysta haddii kale oo aan kala go' lahayn yuu ilaahay ku soo diray subxaanahu wa tacaala. cadaab kala go' la-aan ah oo isdaba haystaa, oo sida soodka oo kale isku daba haystaa, kaabuu ilaahay ku cadaabay. ina rabbaka rabbigaa labilmirsaadi, waa alla mirsaad iyo dhabagal markaa u saaxiib ah addoommadii camaladii ay sameeyaan. fa ama alinsaanu insaanku idaa mabtalaahu hadduu imtixaamo rabbuhu rabbigii, oo fa akramahu uu u karaameeyo, oo wanacamahu loo nimceeyo rabbigii uu u nimceeyo, fayaquulu wuxuu odhanayaa rabbii rabbigay akramanii waa i karaameeyey, wuu i jecel yahay. soo uma jeedaan wixii lay siiyey? waa insaanka dabciga xun. wa amaa idaa mabtalaahu haddiise la ibtixaamo uu ilaahay jaribo, oo faqadara la ciriiriyo calayhi korkiisa risqahu risqigiisa lagu ciriiriyo, fayaquulu wuxuu odhanayaa rabbii rabbigay ahaananii wuu ihaanaystay. ilaahay wuuba inacayba, wuxuu ka dhigayaa jacaylka iyo naceybka ilaahay adduunka oo laysku siiyo, mana ahataa kuma xirna. waayo labadaba ilaahay ibtaluu ku tilmaamay, kii la siiyo loo karaameeyo loo nimceeyeyna waa imtixaan, kii lagu ciriiriyeyna waa imtixaan. fa ama alinsaanu insaanku idaa mabtalaahu hadduu imtixaamo rabbahu rabbigii uu ibtileeyo, fa akramahu uu u karaameeyo, wanacamahu uu u nimceeyo, fayaquul wuxuu odhanayaa rabbii rabbigay akramanii wuu i karaameeyey. wa amaa idaa mabtalaahu haddiise uu imtixaamo ilaahay addoonkii, oo faqadara uu ciriiriyo calayhi korkiisa risqahu risqigiisa, fayaquulu wuxuu odhanayaa rabbii rabbigay ahaananii wuu ihaanaystay. kallaa ka joog, arrintu sidaa ma aha, bal iska daaya, laa tukrimuuna maadan karaamayn idinkaba alyatiima agoontii, walaa taxaaduuna mana guubaabinaysaan calaa طacaami miskiin maskiinka cuntasiintiisa, wata'kuluuna waxaad cunaysaan adturaatha dhaxalkii ayaad cunaysaan aklan cunitaankaasoo lammi markaa ah, lammi ah ayaad cunaysaan buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala, xadgudub ah amase wadajir ah. waa dhammaan turaafkii dhaxalkii oo dhan bay markaa cuneen, asagoo isku darsaday oo iyagoo isku wada darsaday
ayay markaa cuneen. marka dhaxalkiina waad cunaysaan. wata'kuluuna aturaasa akalan cunitaan laman oo xadgudub ah. watuxibuuna almaala xoolihiina waad jeclaateen oo waxaad jeclaanaysaan xoolihii xubban jacayl, jacaylkaasoo jamman adag ama fara badan. jacayl fara badan oo xoogan ayaad markaa jeclaanaysaan xoolihii. kallaa ka jooga arrintu sidaa maaha. idaa dukkat ilardu arladu hadday burburto dekan dekan burburid macnaha dekan bacda dekan burburid ka dambaysay burburto. wa jaa'a rabbuka rabbigaana uu yimaado. waalmalaku malaa'igtiina ay yimaadaan safan ayagoo safsaf ah. wajii'a yowmaidin maalintaana lala yimaado ama waxaaba lala imaanayaa bijahannamo. yowmaidin maalintaasuu yatadakaru linsaanu insaanku uu isxusuusanayaaye. wa annaa lahu dikraa maxay u anfacaysaa xusuusasho? maalintaa ma maalin wax la xusuustaa? wa annaa lahu say ugu sugnaanaysaa adikraa waana qaadasho. waqtila waana qaata markaa ma ahee. kallaa iska daa buu yidhi ilaahay xaaladdu inay sidaa ahaato sidaa ma ahan. jacayl alla iyo naceeb alla kuma xirna adduunka. kallaa ka jooga. waana karaameeyey xoolo marka laydin siiya hadhihina. waana ihaanaystay hadhihina marka laydinku ciriiriyo. labadaba waa imtixaani camal fiican qabta. bal iska daaya laa tukrimuuna ma karaamaynaysaan alyatiima agoontii, ma dhaqaalaynaysaan, ma wanaajinaysaan. walaa